بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان إري كوبان كورنيا إريجي مدحونها الصومالي الآن ما ننتي شلي وكتشيدي جامعة الرعسان دكسيجا أبارسو مقعد اللي هذا برواقه شلي واي تاريخ ذو هيد سداد محرم كنا أفر بقول صدق هي أفرتن هجرية كنا بجناد لحية طبعاً كبش سديدات لبضة كن يكوي لبعتنك مدحوينه هذا الكيساس أما إيه كيساس وحاوسي وين الدفاعي دكسي جابارسو يجمع ديسة إسلام مركانا وحاوير القاضي ضدكي إيدي دكسي جا قضبك للدوانا يكهضي وحاندون إياه قيبك مذا قضب ديساس أما قارك مذا قضب ديساس إن أندول استاجو وحانكو بلا بيا بارستا وسمية مدحوينه وحاول شاقي كدي مركي ومغلي هذا الهينتا أما واركي هذا الهينتا كترتا دوكسيغا بارسو أيا وحاول شاقي إنه لوجيسا كنت جاي كلجي سيوسو قاعد وحال كاك صعدا وحانو شاقي إنه يوصل بحدين النتيجة إن هالكاس يتهاي ميل وناكسن أو لوجوها يو وح قدنا ومضى iyo islaamka ba natiijadaas uga soo baxday hadaba natiijada uga soo baxday waxa ama baarista lafteeda ayaa waxa aynu amaan iska weydiinaynaa madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanayo tusaalahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban bad ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas مدة دائرة كوبان محو كوغان كرا محو حك كوغان كرا بحال الشيء ترى بدن سيدبو كوغان كرا مدة كوبان تاس واتاس قضب كلاباتنا وحال لقى شيء دكسيبو ده معها وحلا تابن كرو أو صار لق عنته لو تابن كرا عمل عارك كرو بدن كود ومعها إنه هدو ماشى وقلت جوا وحي للشيء يبينه عاركيه سيدي معها خمري حشيشة ضد وحلينا هوب تسمع ماشى waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yaani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa tiyada laba marka loo yimaado maxay ku sheegayaan maxay ku sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedanayay may ku sheegayaan طبعا de waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raali ku tahay oo ay culimaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyaga loo soo ogaan lahaa iyaga ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halka ka jira qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yaani la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dabadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay waay kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedo oo bixisay ujeedo maxay ay kala hayeen ujeedo ma laha miya yani waxa weeye ma jacaylayna jecelihiin bay ay maxay dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka يعني محوها يقولي مي هالكن دول كان وتشاد دديس وامعي طبعا وتشاد وليه وتشاد وليه هنا هالكن نكشيجنا وتشاد دود وحويه إن يصوص صاران ضد إيجا لمي ده لفكرة كأجدو أو أي كشبتان كان صاران وحي هراء سيقول في شدان مشاريع دايدونية ضد إيجا أو موالين أو ضاعدا oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayeen soo saaraan waxay doonayaan oo yaani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii hor kacay hogaankii
horkacaya bay doonayaan inay sameeyaan oo siyaasad ahaan horkacaya waxbarasho ahaan horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil haya dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeennii ahayn qalbiguna aanu qalbigeennii ahayn dhaatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyada ku jirta aanay teennii ahayn aynu rabnay ay tahay ninka samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hogaamiyeyaal sidee baynu ugu ogolaanay dalkeenna inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo u soo saaro hogaamiyaha ay sameynayaan aniga hogaamiyaha ay sameynayaan ma nin gaala aniga hogaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinnahay ayaa hogaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynayaa mid la aragtiya buu sameynayaa mid muxuu ahaayay la fikra buu sameynayaa mid aniga muxuu ahaayay muuqaal ahaan iyaga laakiin aan yani wax aan doonayn buu muxuu ahaayay soo saaraya xarumaha waxbarashadu ee ay fartu ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay fartu ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen waynu runta isu sheegnaa yani waxa weeye wax la dhaco maaha wax la amaanana maaha wax laga qajilo weeye wax laga xishoodo weeye in maanta kuwaa lala safto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan samayn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaas bay inoo keeneen dadkeennii bay ku sii dhexdaayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku filayn oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku filayd inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimadii baa ka digtay gudidii wanaag farista ka digtay waxgaradkii baa ka digay intuba way ka digeenoo meeshaas muxuu ahaayay dowladdana way kula dardaarmeen oo ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana haddii la soo hadal qaado meelahaas intooda badan waa diidan yihiin adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahaayay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaalada waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataaye war ummaddan diinta islaamka ku dhaq war wixii diinta islaamka la dagaalamaya ummaddan ka qabo war la garan maayo goorta uu geeridu imanaysee way soo dhowaatay inugu soo wada dhowaatay khaatimo wanaagsan adduunka aynu kaga tagno weliba madaxweynuhu khaatimo wanaagsan ha kaga tago ummaddan khayr ha kaga tago la garan maayo inta la sii noolaanayo rabbigaa la kulan adoo ummaddii islaam kaga tegey laakiin ha kaga tegin adigoo muxuu ahaa siinaya garab muxuu ahaa xarumaha noocaasa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu